wararka ka imaanaya deegaanada Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in dablay hubeysan ay weerar ay ku qaaday xerada ciidamada BNPF ee degmada Calula saaka aroortii hore. Weerarkan ayaa waxa uu salka ku hayaa hub laga dejiyay xerada ciidamada BNPF kaasi oo laga keenay markab ay qabteen ciidamada Puntland ee BNPF ee dhinaca badda. markabkan ayaa waxa uu hub u siday ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya isagoo ku sii jeeday magaalada Muqdisho. hase ahaatee waxaa la sheegayaa in ciidamada Puntland inta badan hubkii fududaa ay ka dejiyeen markabka oo ay geeyeen xero ay ku leeyihiin degmada Calula, halkaasina dablay hubeysan iyo waliba maleeshiyaad ka tirsan kuwa deegaanka ay boobeen xeradiina intay weerar ay ku qaadeen ay qaateen dhammaan hubkii yaalay ee laga dejiyay markabka. warar kale ayaa waxay sheegayaan in markabka loo wado dhinacaas iyo degmada Boosaaso ee gobolka Bari oo uu ku xiran doono dekada magaalada Boosaaso si loo dejiyo agabka culus ee dhinaca militariga ee wada sidaana madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni uu ku amray. dowladda federaalka Soomaaliya oo hadashay ayaa waxa ay sheegtay in hubkan iyo sanadda military ay u socdeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. markabkuna uu ka yimid dalka Azerbaijan oo Soomaaliya ay ka codsatay taageero military, hase ahaatee Puntland markabkaasi dhexda ay u gashay. lama oga xiisadani meesha ay ku dambeyn doonto, hase ahaatee waxaan mar walba aad kala socon doontaan wararka ka soo kordha Rasmi Radio. fadlan haddaad ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir channelkana subscribe noo saar, barnaamijkana noo share garee, noo like garee. mahadsanidin.